adi waxa ku dhaqmi xaway babiyo idma dhiblada waxaan social media dhan ka socotaa anna waa iska ani waa ogtahay waxaas inaan gilgilin aan dabeecad bas leeyahay waxaas aan diraagiya oo iska shaqeysto balse adi waxa tahaba ani xilligan laga bilaabo waqti uu yahay waa iga furtay saddexdaadana qabtaa maxaa qodnaysaa saddexdaada qabtaa muran ma jirtaa reerkin xitaa waxaas ani aadima ka guri joogo aad ka dabina asaga kugu sheega waa iga furtay xilligan laga bilaabo dabeecad ma tahay guriga tagay boorsada bisa xitaa soo qaaday alaabta kale xitaa gumta kay wallahi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaantiin meel kastoo joogtaan waan islaamayna walaalaha qaaliga ee Soomaaliyeed dunida dacaladeeda iyo meel kasta oo ku nooshihiin ama aad naga daawanaysaanba sharafi karaama oo korkiina ha ahaata ayaan idin leenahay intaasi ka bacdi maanta waxaan doonaynaa halkan in aan kaga hadalno haddii Allah awood la idmo baraha bulshada iyo kolba dhacdo tiiba tii ka sii xun oo la yaabayso isla markaasina aan ahayn wax dhaqankeena hidaheena sumcadeena iyo sharafteena iyo diinteena midna sal iyo raad kula aysan ahayn waxaad arkaysaa qofkan si uu media lacag uga sameeyo ama uu media caan uga noqdo ayuu sharaftiisii gadanayaa wajigiisii sumcadiisii iyo diintiisii oo dhan ayuu gadanayaa tusaale qofkan hadduu maanta damco in uu soo caanbaxo in uu dharka dhigto isagoo qaawan oo sidii hooyadii ay ku dhashay uu media soo galo wax uga dhow oo ku soo caanbaxo inaysan jirin buu qofkan iska dhaadhicinayaa dabcan wax kasta oo xun oo samaysana waa wax ay kaaga dayan doonaan in xun oo la'ayd ilin ay maraan ama ay ku soo caanbaxaan ama sidaadoo kale ay wix xun ay ku soo gudbiyaan waxaa jirtay barnaamijyo baraha bulshada laga bilaabay barnaamijyadaasi midka maanta aan ka hadli doono oo ah nin la yiraahdo Ridwaan Isaaq ayaa waxa uu bilaabay jacaylkaaga tijaabi barnaamij ah oo aad iyo aad bulshada ay ula yaabeen falcelin badan ay ka sameeyeen dabcan in ka hesho oo ku taxan way iska jirtaa laakiin in aan raali ka ahayn waxa ninkaasi uu sameeyay oo ahayd in xitaa laga yaabo nin iyo naagtiisa oo isqaba in ay halkaasi isku waayaan mararka qaar oo ay dhacdo barnaamijka isaga aha wuxuu socdayba waxaa laga bilaabay dhammaan meel kasta oo Soomaali ay joogto ama Soomaalida ay degtay ayaa laga bilaabay lianna qofkan markuu mashruuc keeno mashruucii qofkii kali kuma ekaanayo wixii waa media qof kasta inuu lacag sameeyo qof kasta inuu media ka soo muuqdo qof kasta caanimo inuu raadiyo ayuu isku dayayaa isagoo qofkii wax fikir uu duubala haddii maanta aad fikir xun keento oo yacni aan markaasi diintaada ku salaysnayn iyo sharaftaada haddaad keento isla markiiba mid baa kaaga dayanayo oo isagina hor ka sii qaadanaya marka waxaa jirtay arrinka isaga ahaa oo ahaa jacaylkaaga tijaabi ayaa waxay ka bilaawdeen magaalooyin badan oo Soomaalida ay degto oo geyiga Soomaaliyada hadday ka bilaawdeen falcelin badan ayaa jirtay arrimo badan ayaa jiray dad badan oo mustaqbal lahaa ayaa mustaqbalkooda ku burburay kalsooni badan ayaa ku dhuntay haddaba maanta muuqaalka aan sida gaarka uga hadli rabno ama aan la wadaagi rabno waxa weeyaan gabar xaas ah oo saaka siyigeedii ama ninkeedii uu guriga kaga soo tagay ayaa waxay raadisay qof ka qabto barnaamijka isaga kadibna waxay u tagtay nin cameramanka wax duubayay halkii bay kula wadaagtay waxay tiri waxaan rabaa inaad ninkeyga ama siyigeyga ii tijaabiso inuu jecel yahay in kale kalsoonida qofkan asoo kula joogo xalay sariirta aad kaga keensan weyday ama gurigaaga aad kaga keensan weyday qolkaaga aad kaga keensan weyday media aad kaga keensanaysa ama kaga raadinaysa waa maxay run ahaantii ma ahan wax nin uu ku daalo oo yacni dabcan qof damiir iyo yacni hami iyo horsocod iyo mustaqbal leh uu waqti geliyo ma ahan in ii wac jacaylkayga inuu ugu kalsoon yahay waxaasi waa waxyaabaha reeraha ay ku burburaan bay ka mid tahay gabadhii marka waxaa dhacday in ay wacday ninkeedii loo wacay mar allaala markuu ninka taleefanka qabtay ayaa wiilkii barnaamijka waday wuxuu ku yidhi waa hebel waxaana wadaa barnaamij noocaasa waxaana ila joogta jacaylkaaga isagoon weli dhihin xaaskaaga marka waxaa ila joogta jacaylkaaga waxaan doonayaa in magaceeda oo saxsan aad sheegto kadib wuxuu yidhi anu islaam baan qabaa ama gabar baan qabaa gabadhaasina uma malaynaya inay meeshaa joogto ayuu yidhi kadib arrinkii waxaa dhacday in markuu ogaaday in ayadii ay tahay uu yidhi waad iga furan tahay saddexdan kugu qabay baad igaga furan tahay orod guriga aad oo wixii kaa yaallo hor uga soo qaado dabcan mudnaanteeda ayuu sii sababta qofkan hadduu kalsooni adoo la joogto kaa kaysan waayo adoo ka maqan oo taleefon kula hadlayo ama sirtiinii iyo gogashiinii iyo noloshiinii iyo farxaddiinii aad bannaanka keento waxaa ka dhalanaya fashil waxaa ka dhalanaya kala tag waxaa ka dhalanaya kalsooni la-aan iyo waxaa ka dhalanaya xumo oo dhan baa ka dhalanaysa waxaa kaloo ka dhalanayo siro badan ayaa fakanaya oo familkiina iyo noloshiina iyo qoyskiina iyo ilmihiina ku salaysnaa
wax badan ayaana ka dignay dabcan social mediaha dadka isticmaalo inay u isticmaalaan sida ay u isticmaalaan caalamka oo loogu talagalay sida loogu talagalay caalamka wuxuu u isticmaalaa entertainment ama wax la yiraahdo madadaalo ideas fikro kala duwan iyo waxyaabo noocaas ah ayuu caalamka u isticmaalaa social media sababta loo soo saarina taas un bay ahayd ma ahayn in fusqiga iyo xumaanta iyo waxyaabaha muxuu ahaay markaasi dignity-ga ama sharaftaada hoos u dhigaya aad ku soo bandhigta ma ahayn sida had Soomaalida u isticmaasho waxaana igu heliyay barnaamijka oo stuudiyaha ilagu sugan ila jooga arrinkaasina in badan aan halkan wacyigelinteeda ka soo wada gudbinay saaxiibkay Wacane oo isagana bal fikirkiisa ka dhiiban doona Wacane soo dhawow arrinka isaga maxaad ka leedahay aragtidaada aad baad mahadsantahay abwaan tabiyo maalmihii ugu dambeysay baa halkani dadka waxaan kula talinaynay waxyaabaha wanaagsan iyo qaabka loo isticmaalayo social media ayadoo maalmihii ugu dambeysay baa social media ay ka socotay waxyaabo aad u xun oo ku xun dhaqanka Soomaaliyeed iyo dhaqanka Islaamka maalmihii ugu dambeysay meesha waxaa ka imaanayay waxyaabo fusqiyo aad u tiro badan haday noqoto naag laba nin guursanayso haday noqoto nin naag uu furay hadana la waan qabay hawlo badan baa meesha ka socotay waxaa jiray dad cawradooda banaanka keenayo maanta waxaa soo bilaabatayba in yacni la isku furo social media waxaa arki jiray in inta qaalin la tago oo sheekh loo tago la dhaho ninkan iyo aniga islaanteedu waa isku dhacsanahay sheekh nagala gey waa arrin sax laakiin jacaylkayga ii tijaabi aniga dabcan ninka wadada u maray waan samayn lahaa sababtoo islaanteydii xalayto aan isla joognay soo kala toosnay nabad aan kusoo kala tagnay in ay intay nin soo raadsato ninkan wax ka dhaxay ani war mooya maxay ka soo doonaysay gurigeeda nabad ay ka soo tagtay waxay u tagtay cameraman iyo nin meel wada iska taagan bay u imaatay dabcan aniga xataa kale meeshaasi waxa ay gali kara masayr ba ay gali karo oo shaydaan ba meesha ka shaqeyn karo arrintani arrin aad u fiican ma ahayn maalmahan oo dhan ba waxaan uga digaynay dadka inay waxan oo kaleeto ay ku imaadaan maantana way dhacday fadlan haddii uu ninkaagu aad yacni uga keensan weyday jacayl gurigaaga dhexdiisa ama yacni uu kugu jeclaan waayo aheer waxaad dhahdaa walaalow ina kala ge intani ka badan islama joogi karno intaad tegi lahayd social media iyo aad baraha bulshada soo istaagi lahayd hadhow aad meelaha iska sheegsheegi lahaydeen waa laga fiican yahay arrinkaas sidoo kaleeto ragga laftirkiisa waxaan kula talinayaa niyahow haddii islaantaada ama xaaskaada aad jacayl uga keensan weydo guriga dhexdiisa ayadana waxaa jirta wadooyin badan oo jacayl aad uga keensan karto haddaad isku gaftaan guriga tol baad leedahay ehel baad leedahay qaraabaad leedahay maaha inaad social media tagto social media bedelka tagle waxaa ku filan qaybta shareecada inaad aado dowladda aad aado ama nidaam aad aado intaas haddaad wax ku xallin weydo oo wixii uu kugu hagaagi waayo qofkani korkaada lagama abuurin yacni qofkan shalay baad isbarateen nolosha ayaad ku midowdeen noloshana shirka ayaa lagu yahay marka yacni qofka ninka iyo naagtiisa shirka ayay ku yihiin nolosha ay wadaagayaan mar haddii la isku fahmi waayo dee caayar waa la kala tegaya wax weyn maaha intaasi ayaan ina dhihi lahaa intii social media aad ku ciboobi lahaydeen isku furi lahaydeen waxyaabo badan oo fisqi halkaasi uu ka imaan lahaa ama imaanbaxa uu ka imaan lahaa waxaan dhihi lahaa guryahiina wixiina ku xalista iskana dhaafa warwareega iyo social media aad imaanaysaan waxyaabaha iniga idin wanaagsaneen halkaasi aad la imaanaysaan hadda gabadhani kow way ceebowday laba ninkeedii iyo nolosheedii ayay halkaa ku weyday saddex yacni de waa cadowgeeda ku wiirsanaya cadowgeeda ayay u jabtay arrintaasina arrin hadda fiican oo u fiican yacni mustaqbalkiina iyo ciyaalkiina ma ahayn aad baad umahadsantahay Wacane intaasi ayaan barnaamijka kusoo koobaynaa waxaa kale oo qodob aan ku darayaa oo meesha aan ka marnayn qofka lambarka koowaad waa in uu sharaftiisa iyo wejigiisa ilaashado lambarka labaad diintiisa lambarka saddexaadna akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa iyo hidihiisa iyo hadba wixii lagu soo koriyey oo ahaa dhaqankii wanaagsanaa ee Soomaaliyeed waxaana filayaa wacyigelinta iyo arrimaha ku aadan dhaqan xumada ee ka soo cusbanaanaya social media in ilmihiina iyo yacni muxuu ahaayey eheladiina aad uga digtaan hadduu ilaahay raawado intaasi ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkan midka xiga intaan ka gaarayna sidaas iska mashquulsan ama iska shaqo badan hadeertaan shaqadeyda ayaa ku jiray marka mashquul ahay teeda kale anna iska gaari leeyahay